السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوسو دوادا channel كيغا ساك شو ومانتا dalxiis ahaan aad la socotaan waddankan Ireland gaar ahaan magaalada Dublin oo baskan dusha safre furan aan anaga adeer maanta dalxiis ku socno waa maalin jimcaha maxaa leedahay maanta waa maalin wanaagsan qoraal fiican baa jirta marka anagu waxaan daawada callada waxoogaa ma garanaysa inaan socono magaalada ka warkeeno meeshuu fircoon ku deganaan jiray gurigiisa soo aragno fircoon yana oday qoraa jiro waddankan ka caanka ah oo loo dhan jiray magaciisa kuwan filosofiga qoru ka tirsan yahay calaa kulli xaal marka ninkaa odaygaana waan ku faraxsanahay hoygiisa inaan soo arko midda kale waxaan soo arkay isla shalay baan baxay dee kuma sheegin sakariyo waxaa la yidhaha magaciisa Jonathan Swift baa la yidhaha mawta oday aad maqashaan malaynaya maadaama halkan ku dhammaan gaadhay aad ku dhalan gaadhay ya ayaa laga yaabaa dad garas Jonathan Swift marka isagana waan soo arkay xaafadii uu deganaan jiray mawta odaygan kale hadda isagu igu wareegay mawta laakiin de waad garanaysaa kulli cabar kadib baan xusuusan doonaa hadii la yiraahdo kaana waan soo arkay waxa kale oo soo arkay aad wax la wixii kaniisad ku taallay waddanka laakiin waxaan ka yaabay xagga dhismayaasha noocan loo yaqaano Gothic style oo Yurub laga isticmaali jiray 1700 qarnigii 16aad ayaa aad ugu fara badan oo dhab ahaantii aad buu qurux badan yahay qaabka loo dhisay magarasa dhismayaasha hore qadiimiga oo kuwa guryaha Ilaahay waliba ayaa kuwa ugu qurux badan macnaha qaabka ay wax u dhisaan halkaas wax la isku keenay khubaradii oo dhan architecture ya marka wax qaab la yaab leh aad dhab ahaantii xagashaasi xagal fiican qurux badan baa sida adeer inoo sheegay maanta waxyaabo badan baan maxay hayday aad nagala socon doontaan fiidiyada dambe soo socda markuu basku dhaqaaqo magaalada meelo badan baan tusi doonaa waxa tareenkii oo dhan aad aragtaan de wax birti dheereed la sheegana birtan dheer la sheegana waa taa walkaas ku taala waa taa birta dheer nala socda hadaba fiidiyada dambe